website-ka saxda ee doorashada ee ra'iisul wasaaraha cusub ee wadanka Jarmalka maxaa ku qoraa maxaa inaga noo fiican dhaqaale ahaan maxaa noo daran sharci ahaan iyo qaxooti ahaan saddex baan u kala qaadi lacagtana soo gelaysa taynu bixinayno iyo tasharciyada iyo waxaas aan ku bilaabay dadka Jarmalka joogay shaqeeya horta soo dhawaada alxamdulillah jeebadaheena ka dareemayna Mareykanka dadkii u taariibina oo ay soo laabanayaan aan ku bilaabay dhinaca dadka shaqeeya mushaaraadkooda ninkaan baa wuxuu rabaa inuu horta dhimo lacagtii cashuurtii loonishtoyada cashuurtii laga jiriyay mushaaraadka inuu dhimo rabaa halkaasna ay lacag ka soo laabato sidoo kale tan ninkaan baa wuxuu rabaa caynisyadii laga jiriyay mushaarka kii caafimaadka kii duqnimada kii shaqo la'aanta kii hadaad shil gasho wixii oo dhan laga jiriyay inay ayadna la dhimo halka dhowr boqol baa ka soo laabanaysa sidoo kale hadda kadib bilaa cashuur si toos ah akoonka ugu soo dhici doonta lacagtii ubashtundayd ama overtime kayd say shirkadaada uga soo baxday iyadoo waxba laga goynin bay akoonka ku soo dhici sidoo kale ninkaan baa wuxuu rabaa shirkadaha waaweyn cashuurtoodii inuu dib ugu celiyo 25% kaliya si ay shirkadaha mushaar badan dadka u siiyaan shaqooyin badan wadaba lacagaha naga bixi jiray ee ayagana yaraanaya waxa koow ka lacagtii leerka guryaha iyo haysungiga hiitarka guryaha sababtoo ah xukuumadii hore ee jirtay baa waxay burburisay dhamaan Ken Craftigii ayuu ku bedelaya Vindcraft bahashaan sa u wareegaysa marka bahashaan waa qaali cashuurtii CO2 ee bahalkaan qaaliyay ya meesha ka baxaysa sidaas daraadeed kana naloo soo celinaya leerkii iyo wixii oo dhan waxay noqonayaan raqiis anaga waxba nagama gelin cimilada isbedelaysa lacagtaanada inay noo badbaadaan noo daro sidoo kale xukuumadda baa waxay rabtaa inay dib yarayso markii guryaha la dhisayo waraaqadihii faraha badnaa iyo cashuurtii guryo dhisida sidaa daraadeed guryo fara badan wadanka laga dhiso si ay guryaha kiradoodu raqiis u noqoto taa waxa ka sii daran meebeedshtoyadii aad wada garanaysaan ee cunooyinka laga qaadi jiray markaan suuqa aadno 19% maraysi in dib loogu soo celiyo 7% dollarkii 6 euro ahaa 8 euro ahaa inuu dib ugu laabto 4 euro sidoo kale xisbigan baa wuxuu rabaa doorashadiisa ku jirtay in cayd aad taqaaneen meesha laga saaro laguna bedelo wax gurun si sharongolo oo aad uga yar caydii hore dadku haday markaa kadib shaqo tagi waayaan laga joojiyo on cayd oo dhan la siin sidoo kale xisbigan baa wuxuu rabaa inay jawaabtii baanfida oo hay'adda qaxootiga wadanka Jarmalka ay degdeg jawaabaha uga soo baxaan dadka negative iyo sharci midka la siinayo loo dejiyo qofkii negative la siiyana horey laga soo tarxiilo sidoo kale sharcigan xisbigan baa wuxuu rabaa wadanka Afghanistan Syria Iraq wadamaantaas inuu ku shaabadeeyo inay yihiin wadamaan seefa dadkana dib loogu celiyo wadamaanta ka yimaadeen xisbigan baa wuxuu rabaa dadkay dacwadaha u socdeen ee wadanka dibadiisa dacwadaha uga furaayeen inuu dacwadihii u dhib yareeyo xisbigan wuxuu aaminsan yahay qaxootiga saxda ah waa qaxootiga ayagoo wadanka ka baxsan oo dibadooda jooga codsigooda qaxootinimo soo dhiibto marka xisbigan waxa laga yaabaa dad badan inuu ka soo qaato xiriyihii qaxootiga dad badan oo wadanka joogana uu tarxiilo xisbigan hawshan qaxootiga iyo lacagahan caydha inuu hirgeli doono ilama aha waayo xisbigan SPD oo qaxootiga u fiican oo sharciyadan aan ogolaan doonin baa dawladda kula jira sharciyadan dambe sheegay qaxootiga iyo caydha inay hirgelayaan lama hubo laakiin kuwii hore lacagta anaga soo gelini way hirgelayaan jin muu qaba SPD markuu ka hortagayo sidoo kale waxa la hirgelin doonaa wixii la dhigi jiray veefilist ee la isku qasbay askarnimada wadanka Jarmalka hadda citizen tahay da'deedina aad tahay waa lagu qasbi doonaa inaan askarta ku biiro 6 bilood ee soo socota sharciyo badan baa soo baxaya kuwa badanna meesha laga saaraya meesha flow soo dhig si aad ula socoto sharciyada soo baxay iyo kuwa meesha laga saaray